الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed ee kala jooga daafaha dunida ku soo dhawaada barnaamijkeeni xiisa aan xayirmin. Xalqadeena labaad oo ku saabsanaan doonta diinta Islaamka iyo sida ay noogu baaqday arrimaha la xiriira guurka iyo qoyska. Waxaan ka istaagi doonaa 4 jiho ayaan ka istaagi doonaa oo aan idinka tusin doonaa diinteena sharafta badan sida ay noogu dhiirigelisay guurka. Qodobka koobaad haddii aan soo qaato quraanka kariimka ah waxa lagaga waramay arrimaha qoyska la xiriira 146 amba 146 aayadood oo ku saabsan dhammaan arrimaha ay koobsanayso qoysku sida guurka, nafaqada, xuquuqda lamaanaha, barbaarinta ubadka, nuujinta iyo furniinka iyo wixii la mid ah. axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ku soo aroortay mawduucan ma tirin karno mana koobi karno badni awgeed. fiqiga islaamka, diinteena islaamka fiqigeedu marka 4 meelood loo qaybiyo meel ahaan waxay ka warantaa qoyska iyo wixii la halmaala. haddii aan sharaxo 4 qaybood ee uu qaybsamo fiqigu waxay kala yihiin: kow, cibaadaad. qaybta cibaadooyinka ka warantaa waa sida salaadii, sakadii, soonkii iyo xajkii. qaybna waxay ka warantaa mucaamalaad oo waxa weeyaan wax kala iibsigii iyo xawaaladii, wakaaladii iyo kiradii iyo wixii la halmaala. qaybta saddexaad fiqigu waxa uu kaga waramaa asiyaasa ash-sharciyya, siyaasadda sharciga iyo xukunka ayuu kaga waramaa sida tuugii in gacanta la gooyo, qofkii qof dilay in la qisaaso iyo waxyaabaha la halmaala. qaybta afraad fiqiga waxa lagaga waramaa qoyska iyo cilmiga uu koobsanayo iyo arkaanta uu ku taagan yahay dhammaantii. marka islaamku arrin quraanka kariimka ah lagaga waramay 146 aayadood, axaadiista ku soo aroortayna aan la tirin karin. fiqiga islaamkuna marka 4 meelood loo qaybiyo meel ahaan ay tahay qoyska iyo axkaamta la xidhiidha, sidee baynu aynaan ugu samaynayn barnaamij u gaar ah oo aynu kaga warano ahmiyadiisa? sidee baynaan iskugu dhiirigelinayn? waynu isku dhiirigelinaynaaye qoyska iyo guurka iyo wixii la halmaala. qodobka labaad ee aan ka istaagayo arrimaha qoyska waxa weeye iyo sida diinteena islaamku inoogu dhiirigelisay waxa weeyaan qodobka odhanaya ajarada lagu sheegay guurka oo aan la tirin karin. bal qaar baan ka soo qaadan doonaa. haddii aad tahay ka ugu alla ka cabsiga badan ee ugu darajada sareeya, ugu salaada badan, ugu soonka badan, ugu xajka badan, acmaasha kale oo dhanna sameeya sida sadaqadii, dhikrigii iyo wixii la halmaala, darajada ugu sareysa haddii aad taagan tahay walaal amba daawade gaari maysid darajada ninka qoyska leh iyo gabadha qoyska leh ay gaadhaan. miskiin, nin aan gabadh lahayn, miskiinad weeye gabadh aan nin lahayn. bal aan mid isku dul istaagno ajarka laga helayo haddii aynu unugno, haddii aynu yagleelno, haddii aynu samayno qoys muslina, haddaynu samayno ajarada laga helayo. bal aan dhowr ka soo qaato. kow, ajarka nafaqaynta, ajarka laga helayo biilinta qoyska. ajarkaa gaari maayaan ilaa iyo kuwa reer leh amba xaas leh maahane, kuwa kale gaari maayaan. qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam: diinaarun anfaqtahu fi sabiili illah, wa diinaarun anfaqtahu fi raqabatin, wa diinaarun tasadaqta bihi calaa miskiinin, wa diinaarun anfaqtahu calaa ahlik acdamuha ajran aladi tunfiquhu calaa ahlik.
xadiiskan waxa uu koobsanayaa micno aada iyo aada u ballaadhan. rasuulkuna wuxuu inoogu hoga tusaaleynayaa ajarka laga helayo beelinta. diinaar aada ku bixisay dar alle, jihaad fii sabiilillaahi aada ku bixisay marka seefuhu isgalaan ee gaalo layshayo. rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay intaas oo xadiis oo ku saabsan qofka jihaad ka qeyb qaata ee amba maalkiisa ku bixiya amba naftiisa ku bixiya ajarka laga helayo. diinaar lagu bixiyey fii sabiilillaah iyo diinaar aada ku xoreysay qof muslima oo addoon ahaa, iyo diinaar aada miskiin ku sadaqadaysatay, iyo diinaar aada ku nafaqaysay reerkaaga iyo qoyskaaga, waxaa ugu ajar badan buu leeyahy rasuulku diinaarka aada ku nafaqaysay reerkaaga. halkaa waxaan ka arkaynaa ajarka qiimaha ay leedahay nafaqeynta reerka iyo darajada rabbi agtiisa lagaga helayo. ajarka labaad, sunnada nebi maxamed amba jidkii nebi maxamed inaynu dabaqnay oynu ku sugannahay ayay caddaynaysaa inaynu guursanaa. 3 nin ayaa yimid guryihii nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxay waraysteen cibaadadiisa, kadibna waxay isku qanciyeen inaanay gaadhin rasuulka sala allahu calayhi wasalam maadaama rabbi uu u dhaafay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba. mid waxa uu yidhi anigu waan tukan doonaa uun seexana maayo. midna waxa uu yidhi anigu waan soomi afurina maayo. mid kalena waxa uu yidhi dumarba guursan maayo. rasuulka ayaa sala allahu calayh wasalam u yimid oo yidhi ma kuwii sidaa iyo sidaa yidhi baa tihiin? haa bay yidhaahdeen. rasuulku wuxuu yidhi anigu waan seexdaa, waan tukadaa, waan soomaa, waan afuraa, dumarkana waan guursadaa, ee jidkayga iyo sunnadayda kii diidow iga mid ma tihid. halkaa waxaan ka qaadanaynaa qofka guurka ka tagaa amba fududaysta in aanu raacin dhabbihii suubanaa ee mustafaha sala allahu calayhi wasalam. ajarka saddexaad, ajarka isku kaalmaysiga daacadda rabbi laga helayo. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam raxima allahu rajula qaama min alleyli fasallaa waayqada imra'atahu fain abat nadaxa fii wajhiha almaa. rasuulku waxa uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam allah ha u naxariisto, rabbi naxariistiisa ha huwiyo ha siiyo nin kacay niska dambe ee habeenkii tukaday, marka uu tukaday gabadhiisii kiciyey, haddii ay diido wejiga biyo yar kaga shubay, kadibna wada tukaday. waa duco, ma gaadhaysid haddii aada doob tahay amba aada gashaanti tahay. xadiiska akhirkeedana waxaa ku jirtay in gabadhuna sidaas oo kale haddii ay salaada u kacdo ninkeeduna uu yar diido u caajiso biyaha wejiga shax kaga siisa inay naxariista rabbi helayso. heli maysid daawade haddii aada doob tahay, haddii aada gashaanti tahay. ajarka noocana waxaa helaa dadka lamaanaha ah isku kaalmaysta cibaadada rabbi. ajarka afraad haddii aynu soo qaadano waa ajarka barbaarinta ubadka laga helayo. rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu xadiis ku leeyahay man caala 3 banaatin faadabahunna wazawajahunna waaxsana ilayhina dakhala aljanna. rasuulku waxa uu leeyahay xadiis saxiixa, ninka rabbi siiyo 3 gabdhood kadibna barbaariya, u guuriya, una samafala, jannada ayuu gelaya. xadiis kale rasuulku waxa uu ku lahaa ninka 3 hablood dhala ee u samafala naarta jahannama ayay sitr iyo xijaab uga noqon doonaan in sha allahu tacaala. ajarka shanaad waxa uu noqonayaa ajarka ku sabridda haddii mid ka mida awlaadu uu ka dhinto lamaanaha. rasuulku waxa uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam dumarkii ayaa yidhi rasuulkii allow raggii ayaa naga qaalib noqday, waqti noo samee. waa u sameeyey rasuulku, maalin buu la ballamay, uu waaniyey, amarna uu siiyey. waxyaabihii uu ku amray waxaa ka mid ahaa alla ka cabsiga. waxaanu u sheegay gabadh kasta oo ifka iyadoo joogta 3 ubadii ay ka dhintaan oo shafeecaan naarta ayay xijaab uga noqonayaan. gabadh baa waxay tidhi 2 ka waran rasuulkii allow. waxa uu ku yidhi 2na
waa la mid. ajarka ma gaadhayaan oo heli maayaan ilaa iyo dad xaasa amba lamaano ah oo ilaahay u badsiiyo awlaadaas ka dhimatay maahane cid kale gaadhi mayso. daawadayaal taasi waxay naga tahay iyaduna qodob kale oo ah ku dhiirigelin diinteena islaamku nagu dhiirigelinayso guurka iyo inaynu samayno qoys. ajarka lixaad, ajarka u gaarka ah gabadhu adeecitaanka ninkeeda amba saygeeda ay adeecayso ajarka ay ka helayso ayaa iyaduna qodobkan lixaad uu tilmaami doonaa. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna. rasuulku waxau ku leeyahay xadiis saxiixa gabadh kasta oo dhimata saygeeduna uu raalli ka ahaa jannada ayay gelaysaa. ifka intaan joogno ma wax aan janno ahayn ayaynu u shaqaysanaynaa? ma waxaan ahayn inaynu cadaab ka badbaadno ayaynu camalada saalixa u qabanaynaa? jannadu halkanay ka dhowdahay daawade. waxaan tilmaamaynaa 6daa ajar ee aan soo sheegnay iyo ajaro kale oo aynaan carabaabinba inaanay helayn dad lamaano ah mooyaane dad kale. arrinka saddexaad waxa weeyaan islaamku wuxuu xeer ciqaabeed u sameeyey dadka ka leexda marinka shareecadu inoo banaysay inaynu ku gudanno shahwadeenna oo ah guurka. haddii uu qofku ka leexdo jidkaasi oo uu dhanka xumaanta iyo sinada uu u leexdo waxaa diinteena islaamku ay u jidaysay xeer ciqaabeed. taa laftarkeeda marka la sameeyey waxaa la dhiirigelinayaa guurka. marka beenta laynoo diiday runtana laynagu dhiirigeliyey taasi waxay sheegaysaa runta iyo ahmiyadda ay ku leedahay mujtamaca muslimka ah. marka sinada dembigeeda laynoo sheegay diinteena islaamku waxay dhiirigelinaysaa oo inagu soo xereynaysaa xayndaabka qoyska iyo guurka inaguna dhiirigelinaysaa. qodobka afraad waxa weeyaan diinteena islaamku waxa ay fududaysay arrinka la xidhiidha guurka, sida in meherkii la jabiyo iyo in kharashaadka ku baxaya in qoys la sameeyo la fududeeyo. daawadayaal halkaa waxaan kusoo tilmaannay ahmiyadda iyo sida uu islaamku muhiimad u siiyey guurka iyo in la sameeyo qoyska, inagoo ka istaagnay 4 jiho oo kala duwan. halkaa waxay noogu gabagabaysmay xalqadeennii labaad ee barnaamijkeenna xiise aan xayirmin. waxaanu idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.